biya ku dhufata subscribe oo si la gareeyay lana wadaaga saaxiibadiina kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadaniga Hersi ayaa ka hadlay arinta ay soo saareen gudida ee ah liisanka inay ka dhaceen xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga talada haya ee kulmiye iyo wadaniga wixii waxaana uu isagoo arrimaha mar maanta ka hadlayay oo hadal uu ka jeediyay shirweynaha ururka Soomaaliya ee ka dhacaysay magaalada Hargeysa ayaa waxaan rabaa in aan tilmaamo waraaqaha shalay baxayay ama laga yaabo in ay maalmo ka horeeyay ka soo baxayeen waa arkayay in dadka qaar kood leeyihiin xisbiyadii liisanka ayaa ka dhamaaday mu dhamaane waanu joogi doonaa ayuu yiri gudoomiyaha xisbigaas ee mucaaradka ah wadana oo isagu ku gacan sayray talabka ka soo yeeray gudida diiwaangelinta ah in saddexda xisbi ee cudiyo wadan iyo kulmiye ay ka dhacaan liisankii waqtigii loogu talagalay xisbiga mucaaradka ah ee wadana ayaa guud ahaan isagu tilmaamay in xisbi arinta ka soo baxay gudidaas oo iyadu hadda u muuqata mid dhanka waxa gelinaysa ama gacan saar leh madaxweynaha isagana xilkiisii dhamaaday ee Muuse Biixi Cabdi ayaa gabiyahanba ku gacan saaray kooxda al-shabaab ayaa guud ahaanba xayiraad ku soo rugtay shirkadda Hormuud dhinaca gaadiidka iyo shaqaalaheeda oo ay xayiraad soo saartay sida xilligan oo al-shabaab ay dagaal xoog leh kaga socdaan dhanka koonfurta Soomaaliya oo ay dawladda Xasan Sheekh ay xilligan iyo mucaawisleyda hubeysan ee beelaha gobolka koonfurta ku dhaqan ee Soomaaliya oo iyagu dagaal xoog kula jira inta badan deegaanada gacanta ka baxay kooxda al-shabaab ayaa xilligan iyadoo ay muuqatay mid xilligan awoodeedii xoog loo wiiqay ku soo rogtay cunaqabateyn shaqaalaha iyo gaadiidka ka hawlgala ama ka shaqeeya shirkadda Hormuud ee isgaarsiinta ee koonfurta Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage oo maanta ka hadlayay boqolaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo ku dhiirigelinayay sii wadista hawlgalada ka dhanka ah kooxda al-shabaab ayaa mar uu ku bixiyay in ciidamada ay toogasho ku dilaan karaan qofkas oo isbaara dhigta ama jidgooyo gala ee arkaanba ay toogtaan generalka ayaa sheegay inaan la aqbali karin in la dhigto isbaaro loogu dhibaateeyo dadka iyo shacabka ah wuxuuna faray ciidamada in qofkii isbaaro ama isdhigta isgooyo oo halka dadka kaga qaadan lacag in uu taalo lagu dilo si toos ahna loo toogto hadii gacanta lagu dhigo ayuu yiri taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliya Odawa oo isagu la hadlayay qaar kamid ah ciidamada ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ayaa sheegay in xilligan hawlgallada uu ka bilaabmay lagu jiro dagaalka kooxda al-shabaab oo haddana ka bilaabmi doono hawlgalka sida tooska loogu ugaarsanaya kooxdaasi maamul goboleedka Soomaaliya ee Jubbaland iyo goboleedka Koonfur Galbeed oo isagana hadda ay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku dhawaaqay in ay isagana hawlgallada ka bilaabi doonaan yaraan tirada ku dhimatay isbanaanbaxa ka dhacay magaalada Laascaanood ayaa la sheegay in ay 5 qof yihiin halka qaar koodna ay sheegayaan in dhaawac jiraan hase yeeshee dhimashada ilaa iyo hadda idaacadda raadiyo baraarug heshay ayaa lagu sheegay in ay yihiin guud ahaanba tirada ku dhimatay mudaharaadka maanta ka dhacay magaalada Laascaanood 5 qof oo halka ku geeriyooday Allah ha u naxariiste Garaad Cabdirashiid Waraabe dheere oo kamid ah golaha isimada gobolka Sool ayaa ka hadlay arinta ka dhacday magaalada Laascaanood Cabdirashiid oo arinta ka hadlay ayaa waxa uu yiri shacabkayga Laascaanood dhaawac iyo dhimasho marnaba yeysan ina baqdi gelin gobanimo aan nafta loo horina lama helo shacabka Laascaanood waxaan leeyahay inaad si dhab ah uga dhididaan foolxumada ka dhacaysa gobolka Hareysay ee magaalada madaxdiisa Laascaanood ayuu ku tilmaamay in Sool ay aad uga dhidiyaan arintaas anigoo ku hadlaya afka golaha dhaqanka SSC waxaan idinku hogaamin doonaa go'aan sax ah ee dalkeena madax baneynaya wax kasta oo ay ku kacayso talada deegaanka iyo masiirka dadkayga ma aha mid aan cid kale marti uga noqon karno ayuu yiri Allah u naxariistay markii xalay dablay hubeysan ay magaalada madaxda gobolka Sool ee Laascaanood ay ku direen siyaasad ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo ka soo jeeda beesha dhulbahante ee gobolka Sool Allah u naxariistay lagu magacaabo Adraawi Tungub ayaa waxaa dablay hubeysan oo ilaa iyo hadda la garanayn cid ay yihiin ay ku dishay gobolka Sool markaana waxaa la tilmaamay in xilligan magaalada Laascaanood
ay iyadu degan tahay hase yeeshee halka ay ku naf waayeen 5 qof oo ka mid ahaa dadkii mudaharaadka ka dhigayay magaalada Laascaanood.